guddida guud ee beelaha habar jeclo oo muddooyinkii u dambeysay safar ku marayay deegaanada ay degto beeshaasi ayaa safar guura iyo galab carrow ahaa oo lahaa badiyo barriba ku tegay deegaanada gudmo biyo casa ruduuda iyo xiisa. guddidan ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda xiisa oo ay sheegeen inay ku dhisayaan si iskaa wax u qabsaa iyo sidoo kale waddada isku xidha ceerigaabo gudmo biyo cas iyo xiisa iyo weliba madaarka ruduuda oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Sanaag. dhagaxdhigga dekedda xiis waxaa ka hadlay odayaasha deegaankaasi waxayna guddida uga mahadnaqeen bilowga hawshan. waxaan halkan uga mahad celinayaa guddidan sharafta leh ee habar jeclo weyn ee nooga timi galbeed ee maanta halkan dhagax dhigaysa dekedda xiis. waxaan ka codsanayaa dhammaanba habar jeclada qolqoljoog iyo qorbajoog inay ka qayb qaataan si weyn uga qayb qaataan. dekeddu waa kaabayaasha dhaqaalaha dalka Soomaaliland waxbay u taray dadkeenana waxbay u taraysaa. halkan waa xiis waa buurtii macajileenka dawladdii Soomaaliland Siilaanyo madaxweyne Siilaanyo ayaa dhagax dhigay hase yeeshee may suurtoobin in ilaa hadda ay dawladdu ka qayb qaadato la dhiso. waxaan jecel lahay markay sidaas oo kala tahay inaynu inagu xil weyn isa saaro waynu dawladda ka hor dhisano. qolada habar jeclo waxaan leeyahay warkoonaanu joognaa haddaan musbaarka dhulkana loogu xajin waa soo feeydnaynaa. waxaan leenahay musbaarka nala giija oo musbaarkaasu yaanu noo bixin. wax qabtayna waa tihiin dad taariikhda jecelna waa tihiin dad magacooda ku dhintana waa tihiin intaa hadhay nala fayda. xubno ka mid ah guddida oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay qaabka loo dhisayo dekeddan. dekeddan xisaarkeeda muddo 3 sano ahba dad u dhashay beesha oo aqoon-yahan iyo waxgarada leh waa lagu jiray hawsha waanu ku jiray. daraasado badan waa la sameeyay waa la hayaa daraasadihii sidaad aragtaan dekeddu wax weyn baa uma baahna maalgashi yar oo kooban bay u baahantahay aan aad u weynayn. baarkinadii way leedahay meel 100 talaaba ayuun baa la xidhayaa la habaynayaa. waxaan filayaa in guddidii boardkii dekedda iyo ama dib habaynta dekeddana la qori doono oo degdeg loo qori doono rabadaan markay dhamaato inta ololuhu inoo socdo wixii ka dambeeya insha Allah in la qori doono boardkii dekedda ka shaqayn lahaa hadday tahay qaybta dibadda qaybta gudaha qaybta injooyada id kasta hadday tahay in la qori doono guddidii. dekedda tan aanu taaganahay maanta waxaanu u soo bari xaydanay oo habar jeclo wakiil ugu nahay in ay si degdeg ah u qabsato oo deked u samaysato oo dibad iyo gudaba isu xilqaanto. aad iyo aadanana aanu wakiil uga nahay waanaanu gaadhsiin doonaa haddeertana wayna maqlayaan. safarkayagu dalxiis maaha waa safar shaqo. halkan waxaanu u maraynaa inaannu dhagax dhigno dekeddii xiis oo ay isku tashanayso oo awalba isku tashan jirto wax wada qabsan jirtay beelaha habar jeclo. waxaanu ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan beelweynta habar jeclo guda iyo dabadba inay u diyaar garoobaan sidii dekedda aynu uga midho dhalin lahayn. dhanka kale dhagaxdhigga waddada isku xidha ceerigaabo gudmo biyo cas iyo xiisa waxaa si weyn u soo dhaweeyay odayaasha deegaankaasi waxayna sheegeen inay dhib badan kala kulmi jireen waddadaasi. wax la yari bari Soomaaliland bari sooma eegin. waxaanu nahay degmada gudmo biyo cas jidka wax la yiri hartiyimi sidaanu gacmaha ugu xaadxaadayna halkaasaanu kaga murinay iyo neef iyo kiilo bariis oo meel laga soo miisayo. maanta hadday u fiirsatay dalkeedii habar jeclo inuu qalbiye yahay guurtideedii iyo waayeelkeedii guud ilaahay baanu u shukrinaqaynaa. jidkaa gacantaanu wax kaga qabanaa anagu gacan way dhaaftay. beelweynta habar jeclo hadday tijaar tahay iyo hadday madax tahay waxaanu leenahay jidkaa u soo gurmada oo wax nagala qabta. annuna waxaanu la taaganahay sidaanu u taagnay baanu ugu taaganahay. adoo waa gebagebo aad baan waxaan runtii aan uga dhagax dhigaa halkan noo dhagax dhigayaan qurbajoogta habar jeclana waxaan faraynaa war maanta waa taa guddida noo soo dhagax dhigta wax aragtay ee wax nagala qabta. gudoomiyaha guddida gar adag gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale xogayaha guddidaasi oo iyaguna halkaasi ka hadlay wax hadaladoodii ka mid ahaa. waxaanu leenahay habar jeclo gudmo biyo cas baanu joognaa waddadeeda waynu wada garanaynaa. annagu adeegayaal baanu nahay inaannu u kuurgallo inaannu ogaanno inaannu idiin sheegno inaannu qorshaynaannu xaq u leenahay. waxaanu kaloo xaq u leenahay oo saaka aanu ku dhawaaqaynaa 20 kun u horeeya guddidaa bixinaysa 20 kun u horeeya
guddidaa bixinaysa waxaan leeyahay si dhaqsaa oo ay ku jirto wadaniyad iyo reernimo iyo isku noolaansho iyo wada noolaansho si ay ku jirto ilmaada reer aan ugu diyaar garowno aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ayaa yidhi maanta baahidoodu ay noo muuqato ayagoo aan sheeganin runtii waa wax laga argagaxa weeye waa dad aad u fara badan oo dhul buuralaya ku nool waddaduna gamcahooday saaran tahay gaadhiga 100 qof baa horgelaya arrin argagaxle baanu meesha ku soo aragnay beesha habar jeclo waxaanu leenahay war dadkeenna aynu dhibaatada la qaybsanno oo aan isku mid noqonno oo aan wax wada qabsan ugu dambeyntiina guddida waxay dhagax dhigtay dhismaha madaarka Rududa oo ay sheegeen inuu mustaqbalka noqon doono madaar ay diyaaraduhu ka duulaan madaarkan madaar caalami ah oo waxaan joognaa magaalada Rududa arinta ugu muhiimsan markuu soconay waxa weeyaan madaarka caalamiga arkaysaan oo saala sheegay 8 kilomitir oo square ah dawladii horena isticmaal jireen in badan isticmaalayeen ayaanu damacnay inaan u dhagax dhigno habar jeclo waa deegaankii Rududa badii iyo barigiba way isku qulfalan yihiin garoonkanu waa 8 kilomitir xaadhish hataa uma baahna wax maal gashada u baahan yahay maanta sharaf weyn noo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno guddidii guud ee habar jeclo oo socdaal ku maraysa deegaanada habar jeclo degto maanta waxa sharaf weyn noo ah inay halkan dhagax dhigaan madaarkii weynaa ee caalamiga ah ee airport city Rududa raadeed marka halka kan baan ku soo dhaweynay guddidii habar jeclo waxaan soo dhawaada gama furan baan ku soo dhaweynaynaa Shaafici Maxamed Ibrahim dalfashika caalamiga ee Somali Cable